halkan waxaan ku arkaynaa biliqadii baabuurtii waddada waxa maraya waa biliqadii baabuurtii ka timid laga soo dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee uu haraagi cabdi maxamed cumar la soo dhacay sidaad ku arkaysaan baabuurta waxa galbinaya ciidamada booliska Soomaaliland waxaad ku arkaysaan baabuurtii waad aragtaa gaariga waxa ku qoran heego waxaad arkaysaa waa kuwan baabuurtii gaariga waad arkaysaan heego waad arkaysaan baabuurta waxaad arkaysaan baabuurta kuwa cabdi maxamed cumar dhabarka kaga qoran waad aragtaan baabuurta أنا رح تنيم كبرت شو عرضني يو سالكو أركيسان واحد باورتها أي سعودان يعني واحد باورتها سعودان والله صدع عي باورتها واحد كو أركي دونتان مقع عبد محمد عمر باكو قرن CMC واحد كو قرن هيغو واحد كو قرن وباورتي لقى صدع عي دولة ديجان الصومالية إثيوبيا waxaad arkaysaan halkaas baskaa markaan dhaafno waxaad arki doontaan wax ku qoran waad arki doontaan waxay dhex marayaan bartamaha magaalada Hargeysa hadda buurta kala saxan bay marayaan baabuurta waxaad ku arkaysaan cabdi maxamed cumar waxaad arki doontaan baabuurtan waa baabuurtii laga soo dhacay ee soo boobeen taliskii مقرب كهاء وهو قامنا عبد محمد عمر يجي عبكي وحكوا أركز على كوا CMC حق كلا وحكوا قرن هيجو وذاك دونتان إن وحكوا أركز هيجو باورتن وحلقة صوت عي باورتن وحلقة صوت عي هي يا تيجا وتاريخ وتاه نينك معجقة وحاسو كتاه in baabuurtii qaranka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta iyaga oo farxada lagu qabto magaalada Hargeysa waanta qura la qabtay waxaana loo soo sheegay magaalada Burco sida yihiin waxa la sheegayaa meelo ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya siiba degmooyinka qabri bayax iyaga oo ku qoray jabhadooda amba wada macangaga ah ee booraysa ogaadeenka onalaf iyaga ku qoran ayaa joogaan gaarigan hor socda waa aragtaa waa baabuurtii shicibka oo la soo dhacay oo la soo boobay oo ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen gaarigan haddana hor aragtaa qaar waa gawaarida shacabka qaarna waa gawaarida dawladda iyo qaar baabuurtii hay'adaha waad aragtaa halkaa waxa ku qoran heego waad aragtaa heego iyo cabdi maxamed cumar baa ku qoran baabuurtan waxa ku aragtaa noocan waxa ku aragtaa wadigaaka waad aragtaa hadda waxa ku qoran heego cabdi maxamed cumar baa ku qoran waad aragtaan waa baabuurtii dawladda waa lambar 4 waa baabuurtii dawladda waa baabuurtii ummadda lagu hadeegayay talisku markii waa markii ugu horeysay ee dawladda deegaanka wadan weyn ah Itoobiya ay ka dhacaan waxaan oo kale ceebtan oo kale sekada dhan iyo waxa dhan ay naga horeeya waxa weeyaan baabuurtii ay u dhacay ee baabuurta la soo dhacay runtii waxa jira Burco waxa jira ismaamul goboleedka Puntland ayaa wax lagu boobay intaan leeg waxa jira xuduudahan Soomaaliland oo dhan alay baday iyo degmooyinka la xadka ah ilaa gaashaam ka gaarsii saasay biliqadu taala waxa la arkaysaa macagnimadii cabdi maxamed cumar inuu waxa kaga tagay iyo dhibaatada maanta aad arkaysaan intii aad arkaysaan waad aragtaan waa kuwa saas lagu xaleynayaa waxaana lagu weelsin doonaa dawladda federaalka Itoobiya waayo biliqa hadii biliqa lagu dhiso waxay noqotaa haddana biliqa dib loo celiyo waa kuwa waad aragtaan waa bartamaha magaalada Hargeysa waxa ka dhaxmaraya ya man Allah waa sidaa iyo hal isku ogaado Soomaali inay ogaadeen dan u hayn Soomaali galbeed waxaan u sheegaynaa inuu ogaadeen dan u hayn ay yihiin kooda madaxweynaha iyo kooda duur ku jira iyo kooda askari burcad u taagan ummadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay baabiyaan waa wax laga naco qarankii dhisnaa caasimadii dawladda deegaanka niman u dhalanay saas baa ugu kala carray
waxaan leeyahay dadka deeg u dhashay gobolka Jigjiga inay isku dubnaadaan oo ay u soo jeesadaan danaha qarankooda ilaashadaan caasimadooda ilaashadaan gobolkooda waxa laga dhisay gobollo kale runtii kama xumin laakiin waxay tahay cawaaqib xumada maanta ay ku dhaqmeen taliska Cabdi Maxamed Cumar Cabdiilay